بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalayaal kusoo dhawaada qiso kale oo cusub oo ku saabsan barakada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam istighfarta iyo xawqalada la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mid kamida walaalaheen oo kamid ah barnaamijyada yani dadka fuliya barnaamijyada istighfarta iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidoo kale dabaqaada adkaarta yoomiga ah ayaa waxay inala wadaagi doontaa insha Allah ta'ala qisadeeda iyadoo oo walaalaha ku dhiirigelinaysa insha Allah in ay yani Ilaahi subhanahu wa ta'ala ay aaminaan xuska Ilaahi ay badiyaan saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ay badiyaan waxaana inoo sheegi doontaa insha Allah ta'ala culaysadii soo wajahay imtixaanka ahaa siday ugu samirtay sidii adkaarta u qabsatay iyo sidii Allah subhanahu wa ta'ala oo farajka ugu furay ku soo dhawaada markaa walaalayaal halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan walaalaha khayrka jecel oo ku xiran channelka barakaad saliga nabiga iyo ustaad Abdinaasir muddo badan oo aad u badan 2 sano baa waxaan ku soo jiray dhibaato aad u weyn mar aan xanuunsanaa mar aan dhibaato family aan ku jiray oo habda xaalada gaar mareysay muddadaas aad iyo aad bay noloshaydu maxay waxay ahayd nolol aan laga sheekeyn karin dhaqaatiir badan baa tagay quraan badan baa la saaray waxyaalo badan kadib waxaan ku xirmay channelka barakada saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo ustaad Abdinaasir talooyin badan oo isiiyay la talino badan oo isoo jeediyay inaan adkaarta akhristo saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam akhristo kadib waxaan akhristay saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam oo aan badiyay istighfaartu aan badiyay xawqaladu aan badiyay oo aanan maxay timaalin ka tagin muddo ilaa dhowr bilood hadda aan soo waday alxamdulillah maanta waan caafimaaday xanuunkii ilaahay uu iga kaxeeyay dhibaatooyinkii kaleeto oo familka iyo maxay caqabadii kale aan ku jiray ee way iga kala yaraadeen oo maxay waan ka soo gudbay Abdinaasir sagana khayr Allah siiyo ustaadkeena quraan buu isaaray quraanka haduu isaaray waan yara xanuunsaday kadib maxay waan fiicnaa alxamdulillah waxaan ku helay barakada saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam istighfaarta iyo xawqalada farxada waxaa kamid ah lacago aan filanayn oo aan helay oo ka helay familkii qaar kamid ah oo safar aan rabo inaan ku galo oo wadanka aan joogo aan wadan kale u safrayo kadib anoo safarkii isdahaya sidee baad u safartaa yaad la safartaa yaad raacaysaa yaad ku degaysaa dhowdii waxaa ii suurta gashay inaan farxad kale helo oo ah familkaygii in ay dhahaan waan maxay ku raacaynaa oo meeshaas aad socotay baan u soconaa intaas oo dhan waxaan ku helay saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo xawqalada iyo istighfaarta baan ku helay waxaan leeyahay 3 tusbax oo mid ku farta ah iyo waxa la tusbax 300 ah waxaan u soo bartay in aan ku tasbiixsado oo aan kala joojin waxaan kale ku helay dikriga in qalbadii ii degtay in aan xaslooni helay in aan yaqiin dhab ah helay in aan salaadahaygu aan waqtiga ku tukan jirin aan maanta waqtigooda ku tukado sunnayaash inaan ku darsaday cibaadad aad u badan aan la imaaday alxamdulillah maantana wax badan ay iska bedeleen oo noloshayda waa hore sidaan ahaa iyo hadda maanta saanahay wax aad iyo aad u weyn baa iska bedeleen marka waxaan leeyahay sirta noloshu waa istighfaarta iyo ku xirnaanshaha Allah iyo in Ilaahay la tala saarto marka waxaan leedahay walaalahay waxaan ku boorinayay inaad maxay qof kasta oo dhibaataysan ama family ha ahaado ama qof xanuunsan ha ahaado ama qof cidiisa maxay dhibaato ku jirta ha ahaado waxaan idin leeyahay dhanka Allah u carara ilaahay tala saarsada istighfaartiisa maxay istighfaarta badiya
saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badiya allah isku xira dhibkaas oo dhan waad ka baxaysaan farxada aydan maxaytid filanaynin baad helaysaan aniga farxadahaas aan maanta helay kuwa aan filaayay ama ku fakarayay ama isdhahayay waad helaysaa maahayn laakiin yaa is ya allah